السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابta كريبتا soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo maalin cusub wararkii maanta ayaan idiin haynaa oo OMAYA Exchange ay ugu tala gashay haddii muuqaalkan uu yahay muuqaalka ugu horeeyay ee ku soo gaara videogan like garay sidoo kalena channelkeena ku soo biir ee OMAYA Exchange si aad u hesho mar walbaba warbixino ku saabsan cryptocurrencies-ka iyo sidoo kale wararkii u dambeeyay ee cryptocurrencies-ka ugu waaweyn si mar walbaba aan noqono update sidoo kalena aad u hesho warbixino iyo wararkii ku saabsanaa cryptocurrencies-ka haddaba maanta waxaan falanqeyn doonaa haddii la yiraahdo saacadii ugu dambeeyay waxyaabaha cryptocurrencies-ka ama crypto world iska bedelay ama wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay haddii la yiraahdo insha Allah aan guda galno wararka maanta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah falanqeeyayaal saadaariyay 90% fursad ah in la ansixiyo spotlight coin ETF sanadka 2025 sidoo kale heshiis dacwo la xiriira hackerkii sameeyay qoraalkii been abuurka ahaa ee lagu soo daabacay page-ka SEC hay'adaas sidoo kale Ethereum ETBs oo dhaafay Bitcoin dhanka maalgashiga cusub wararkaas iyo maxaa la yiraahdaa aan faahfaahin doonaa haddii la yiraahdo insha Allah aan sii guda galno warka koowaad falanqeeyayaal oo saadaariyay 90% fursad ah in la ansixiyo spotlight coin ETF sanadka 2025 falanqeeyaasha ETF ee Bloomberg loo yaqaano James Seyfarth iyo sidoo kale Eric Balchunas ninka loo yaqaano waxay ku qiyaaseen in 90% hay'adda SEC ay ogolaan doonto spotlight coin ETF dhamaadka 2025 sidoo kale waxay sheegeen in Litecoin uu leeyahay wado sahlan ee u marto ansixinta markii loo barbar dhigo kuwa kale Litecoinska sida XRP iyo Solana iyo sidoo kale Dogecoin oo iyaga kala haysta XRP oo kale waxay haystaa fursad 65% Solana 70% iyo sidoo kale 75 oo Dogecoin iyadana ah hadda fiirisid hadda jaartigan ay soo bandhigan fiirisid ama James sidoo ku soo daabacay ka yiri Eric Balchunas iyo sidoo kale aniga took a loop of filling for spot crypto ETFs we are betting our relatively high odds of approval across the board, mainly focused on Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin for now. Tragas soo bandhigaysa ujeedin halkan 90% waaye wax loo yaqaan Litecoin, halka Solana 70 iyo 65 oo XRP iyo 75% waa fursadda ay ku heli karaan macna ama ay ku approval ku heli karaan wax loo yaqaano SEC ku ansixin karto waa macna maxaa yeelay foomamkii looga baahnaa waa la gudbiyay sidoo kalena waxaa la filaa in SEC ay aqoonsato Litecoin inuu yahay qaab community ahaan ama badeec ahaan inay u aragto qaabkaasi aaminsan yihiin waxaa u gudbaynaa warka labaad wuxuu yahay heshiis dacwo oo la xiriira hackerkii sameeyay qoraaladii been abuurka ahaa ee SEC okay mas'uuliyiinta Mareykanka waxay soo jeediyeen heshiis maxkamadeed oo la xiriira ninka la yiraahdo Eric Council Jr oo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa weerar sim swap ah oo lagu xaday akoonka X oo hore loogu yaqaan Twitter ee SEC ay leedahay bishii Janaayo 2024 haddaba arintaas waxay keentay qoraal been ah oo lagu shaaciyay spot Bitcoin ETF in la ansixiyay qoraal noocaas ah lagu baahiyay SEC markii laga jabsaday kadib sidoo kale heshiiska dacwada wuxuu dhigaa inuu buuxiyo ama uu bixiyo 50,000 oo ganaaxa isla markaana uu qirto inuu galay dambi la xiriira xatooyada aqoonsiga iyo khiyaanada aaladaha elektarooniga inuu isticmaalo macna simswap kaartooy loo yaqaan isticmaaleen nigaas uu ka caabiyay macna dadkii barnaamijkaas sameeyay qaabkaas lagu eegaysta go'aankana xukunkiisa waxa la dhageysan doonaa 16 May haddii alla yiraahdo uu Ilaahay na gaarsiiyo marka waa arin iyadana wadato maxaa la yiraahdaa wax loo yaqaano la yaabkeeda wadato waa macna haddaba warka saddexaad wuxuu yahay aan ku soo gabagabeyn doono Ethereum ETBs oo dhaafay Bitcoin dhanka maalgashiga saa taqaanin badanaa badeecooyinka ama wax loo yaqaano assetska sida Bitcoinka Ethereum ka kale waxay leeyihiin ETB wax loo yaqaan ama exchange waxa loo soo gaabiyay ETBs tan exchange tradable products oo dhaafay Bitcoin dhanka maalgashiga cusub haddaba
ETB-yada la xiriira cryptocurrencies-ka ayaa usbuucii shanaad xiriir ah la arkay maalgelin oo kordhaysa maalgelintooda inay soo badanayso. ETFs-ka hadda si kale uu idinkugu sheego waa dadka lacagaha loo dhiibto si ay markaas ama trading ha ku sameeyaan ama ha maalgeliyaan, laakiin lacag gooni ay markaas kugu maalgelinayaan. Marka waxaa la arkay in maalgelintaas ay sii kordhayso taasoo gaaraysa 1.3 bilyan dadka soo galaya laga wadaa inflows-ka. waxaa si gaar ah loo arkay in Ethereum ETBs-ka ay soo jiiteen ama ay inflows ay heleen oo 793 milyan ah dadka cusub, taasoo dhaaftay Bitcoin ETFs-ki oo asna sidaas si lamid ah helay 407 milyan. haddaba tani markii ugu horeysay ee sanadkan 2025 ee Ether uu dhaafo Bitcoin dhanka maalgelinta toddobaadlaha weekly inflows-ka laga hadlaa. waa maxaa la yiraahdaa hore uma dhicin meena 2024. si kastaba ha ahaatee Bitcoin aa weli hogaaminaya guud ahaan maalgelinta sanadka markii la fiiriyo sanadlaha, isaga aad u hogaaminaya isagoo urursaday inflows-kiisa sanadlaha uu noqday 6 bilyan oo 500% ka badantan Ethereum-ka ama Ether-ka ayay ahayd. intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee cryptocurrencies-ka ee idin soo jeedinaysa OMAYA Exchange. haddaba maxaa adiga kaaga baxay, maxaad isleedahay arrimahan wax badan way ka bedeli karaan? warar kuwan la mid ah iyo sidoo kale wararka maalin kastaba si update u hesho oo daily aad u hesho ku xirno channel-keena oo subscribe saaro, sidoo kale gambaleelka furo, sidoo kalena YouTube-keena booqo si aad u hesho maxaa la yiraahdaa warbixino ku saabsan cryptocurrencies-ka, cashiraha hadday noqoto, qoraalaha hadday noqoto iyo wax walba oo maxaa la yiraahdaa uga baahan tahay cryptocurrencies-ka. mar walbana development yaa sii samayn doonaa hadduu la yiraahdo. inta warkan oo kale aan kulmi doono, nabadgelyo.